abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha marka roob da'o ay roob helno xilliyada roobabka labaduba waxa ay keenaan in ay saameyn ku yeeshaan dhaqaalihii bulshada xoolihii beerihii dabadeedna ay abuuraan barakacayaal cusub iyo qaxoonti cusub si haddaba looga gaashaanto su'aasha muhiimka ah oo isweydiinta leh aanan filayo in ujeedada shirkan loo qabtay tahay waxa weeyaan sidee baan ugu adkaysanaa abaaraha baahsan ee mar walba geeyigeena ku dhufta iyo marka aynu roob helnana fatahaadaha webigiyo fatahaya beerihii iyo dalagii iyo tacabkii baabiinaya fatahaadaha biyaha iyo roobabka oo dhismihii duminaya dalagii baabiinaya dadkii baabiinaya keenaya dhimasho naf iyo xoolaba waxaan isleeyahay shirkan muhiimadiisu waxa weeyaan see loo abuuri karaa oo adkaysiga seeba looga gaashaaman karaa sidee biyaha loo maamuli karaa hadday biyo roob tahay oo sida ay u socdaan badweynta galaya iyo hadday tahay webiga fatahaya see loo maamuli karaa looga shaqeyn karaa arrintaas waxay u baahan tahay dhaqaale iyo qorshe waxaan isleeyahay qorshahan maanta loo fadhiyo oo afka qalaad RRF la yiraahdo ay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale soo bandhigeen in ay wax badan ka tari doonaan haddii ku talagalkiisa iyo dhaqaalihiisaba la helo in dadka Soomaalidu xoolo dhaqato miyi iyo magaalaba ay u adkaysan karaan dikhowga cimilada adduunka oo keenay nooc roob fatahaad iyo barakicin uun abuuraya iyo laba abaar ba'an oo ku dhufanaysa mar walba dhulkeena oo aynu marxaati u nahay kuwii ugu dambeeyay oo iyaguna mar labaad saameyn nolosha iyo biyadiiba ku yeelanayo waxaan markaas leeyahay aanan ku dheeraanin shirkani wuxuu muhiimad inoogu yahay inaan fikirka isku biirino beesha caalamka wadamada saaxiibka nahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedada iyo daneeyayaasha kaleba isla markaana ay ka soo baxdo xuluul ama xalal miro dhal ah oo suurtageliya inaynu ka gaashaaman karno labada musiibo ee waaweyn waxaan u hambalyeeynaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo shaqaalaha wasaaradda iyo hawlwadeenada wasaaradaha kale beeraha iyo gargaarka iyo maamul goboleedada dhamaantood waxa kale oo hambalyeeynaa beesha caalamka iyo saaxiibadeena inaga taageera mashaariicda kala duwan ee horumarineed iyo bini'aadminimada